assalaamu calaykum daawadayaal. shaydaanku waa cadowga kuwaada insaanka, waxaana ilaahay noogu deeqay aayado kala duwan, ducooyin iyo adkaaraynu isaga ilaalin karo, isagana difaaci karo sharka jinka iyo shaydaanka. haddii qofka muslimku isku diyaariya inuu seexdo gogashana fuulo, wuu akhrisanayaa ducooyin intuuna seexan, waayo mahuba wax ku lamaan oo uga soo horreeya ama uga dambeeyey gogasha. wuxuuna ilaah ka dalbanayaa inuu ilaaliyo naftiisa uuna badbaadiyo. wuxuuna oranayaa أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كوما سو دhowaanayo jinka iyo shaydaanku, waayo waxaad naftaada ku salimtay ilaalada ilaaha raxmaanka, waxaana ilaah kaa ilaalinayaa sharka dahsoon ee ka ku arkaya adigu si aadna arkayn. qof walbo muslim ayaana laga rabaa inuu ku mintido dikriga ilaaha raxmaanka, xitaa uma soo dhowaanaya agtiisa jinka iyo shaydaanku. wuxuuna dhahayaa allahuma aslamta nafsii ilayk wawajahta wajhii ilayk wafwadta amru ilayk waalja'tu dahrii ilayk raqbata warahbata ilayk laa malja walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalt وبنبيك الذي أرسلت واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ducadan ayaa iyaduna kaa difaacaysa sharka jinka iyo shaydaanka. ilaahna wuxuu kaa dembi dhaafayaa dembiyadii aad gashay oo dhan. waxaana nebigu ina baray sallallahu calayhi wasalam sidaynu uga gaashaaman karno nafteenna waxyeelada jinka iyo shaydaanka xilliyada hurdada ka hor ama kadib, iyo weliba sidaynu uga fogaan karno in jinku ama shaydaanku waswaasiyo nafteenna. ilaahna inoo dhaafo dembiyadii aynu galnay oo dhan. waxaana la ammaana haddii qofku weysaysto una u diyaargaroobo salaada inuu wejigiisa u jeediyo dhinaca qiblada, wuxuuna dhahayaa allahuma inii aslamtu wajhii ilayk واستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. qofka intaas dhahaa 3 jeer ilaah ayaa u dambi dhaafa insha allah, xitaa haddii dembigiisu la egyahay sida xumbada badda ama xitaa caleemaha geedaha ama maalmaha dunida oo dhan. waxaana laga soo wariyey caabin ibnu shucayb inuu nebiga sallallahu calayhi wasalam uu yiri, haddii qof idinka mid ihi ku saaso hurdada, ha yiraahdo ducadan soo socota: acuudu bikalimaati illaahi taamaati min qadabihi waciqaabi washari cibaadih ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. wuxuuna ahaanayaa midaan la asiibin. ilaaha naga yeelo kuwa ilaah ka magan gala sharka jinka iyo shaydaanka. allahu yaclam, ilaah weyn ayaa wax walba og. wasala allahu calaa sayidina maxamed. ilaahayna ilaaliya dhammaantiin daawadayaal. haddii uu ka cajabiyey fideogan, like oo la wadaag asxaabtaada, kuna darso linkiga hoose ee xawataaka youtube oo aynu mar walba idinku soo gudbino barnaamijyo cilmiyeysan oo aan jeclaysanay inaan idinla wadaagno.